markii ugu horeysay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalka Uganda ayaa qabsaday shirka sanadlaha ah oo uu soo abaabulay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Uganda. Shirkan ayaa ah mid looga aransanayo aayaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi Uganda iyo sida ay si dhow iskula socon lahaayeen xaaladahooda. Ugu horeyn waxa shirka furay gudoomiyaha qaranka ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Uganda isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankani. Soomaaliyeed ee jaamacadaha Uganda iyo wakiilada kale iyagana nagala jooga daladaha ama ururada kale ee ka dhisan dalka Uganda ee xubnaha kale ardayda iyaguna firfircoon kamid ah inaan idinka mahadceliyo sidaad shirka u soo ajiibteen iyo runtii hawlaha kale ee wanaagsan ee u heesaan ardaydeena Soomaaliyeed. intaas kadib madashan in ay tahay madal sanadla ah oo laakiin sanadkan ay tahay tii koowaad xarajeynayna inay noqoto mid sanad walba markaasi dadka muhiimka u ah ardaydeena ama indhaha u ah oo ay gudoomiyaasha jaamacadaha ugu horeeyaan inay isku arkaan oo ay markaasi masiirka iyo danaha ardayda Soomaaliyeed ay kaga hadlaan insha Allah. waan rajeynaynaa mid wax ku oolo miro dhala oo jiilba jiilka ka dambeeya oo ka sii dhaxlo inuu noqon doono insha Allah. qodobada ama ajandayaasha shirka hadda inoo furan sidaad u jeedaanba qodobka noogu muhiimsan waa caqabadaha soo wajaha inta badan ardaydeena iyo sidii loo xalin lahaa. halkan kuleyto waa isla wada fiirin doona marka gudoomiyaasha jaamacadaha inta badan haduu alla idmo ahmiyada siin doona maadaama waqtigan uu nagu yar yahay inaan qodobkaas si fiican aan markaas ugu wada hadalno sidoo kale intana aan markaan caqabadihii aan helno kadib inaan xalkeedii sidii loo xalin lahaa inaan markaas isla garanno kadibna wixii aan ka dhigno wax miro dhalo shaqeeyo haduu alla idmo. sidoo kale waxa iyaguna goobta ka hadlay qaar kamid ah gudoomiyaasha jaamacadaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi Uganda iyadoona ugu dambeyn qodobada ka soo baxay kulanka ugu horeeyay ee sanadkan ay ku yeesheen Kampala oo warbaahinta la wadaagay Bakar Cali oo kamid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalkaasi Uganda sidoo kalena ah gudoomiyaha ardayda jaamacadda Kampala ee dalkaasi Uganda. kulanka ay wada yeesheen gudoomiyaasha jaamacadaha ardayda Soomaaliyeed xubno ka socday sida guud ardayda iyo madaxda midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed oo horkacayay wakiilka Uganda oo fadhiya Mudane Cabdiqaadir Fiidka. ajandaha shirkan sanadlaha ah wuxuu ahaa 3 qodob. qodobka koobaad wuxuu ahaa in gudoomiyaasha ay isdhaafsadaan warbixino waxyaabo u qabsoomay sanadkii tagay si fiican ay gudoomiyaasha ugu warbixiyeen la isku dhaafsaday xogaha kala gedisan ee sanadkii 2019 qabsoomay. qodobka labaad wuxuu ahaa qorshaha sanadka cusub ee 2020 u yaala ururada kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda. waa qorshe ugu muhiimsanaay oo sanadka 2020 gudoomiyaasha si wada jira iyo bahda maqso ay u falanqeeyeen in 2020 la gaaro achievements qurux badan. qodobka saddexaad wuxuu ahaa caqabadaha haysta ardayda iyo way faawadkooda ama maaragtay sida looga bixi karo oo maaragtay solutionskooda. caqabadaha aad ayaa looga sheekeeyay sida ardaydu markay yimaadaan oo maaragtay bilaawayaan wax jaamacadaha ama waxbarashadii waxyaabaha ay isticmaalaan sida boodooyinka iyo falalka shilalka u yimaada adiga wax caqabada oo mar walba la soo kordha ardayda ay arkeen gudoomiyaasha jaamacadaha iyo xubnaha ka ahba aad ayaa loo falanqeeyay. sidoo kale xalka ayaa asna la falanqeeyay. saddexdaas ciwaan ayuu u badnaa shirka sanadlaha ah lagu falanqeeyay. runtii aad ayaa maaragtay looga guul gaaray kulanka wuxuuna ku soo dhamaaday si farxad ah si maaragtay reen ah isfahan ah waxaana lagu ballamay in ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda la gaarsiiyo sanadkan waxyaabo ka bedelan waxyaabihii hore. waa shirkii ugu horeeyay oo ay qabsadaan guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi Uganda oo si sanadlaha u socon doona iyadoona sanadaha soo aadan si la mid ah ay iclaamiyeen in shirkaani uu noqonayo mid sii socda. Maxamed Cabdiqaadir, GALMUDUG TV.